intana waxaan ugu mahadcelinaa madaxweynaha Djibouti Ismail Cumar Geelo asna waatii aniga aqaan tagay iskaana saaray marka waxay ugu dhaheen galab way dhaheen marka hadii oo kaasaa qof rasuulka oo yani waqtiga oo saxiix qof kale oo rasuulka oo wakiilka ina keenst inta iska hadayso afantama oo xilliga qabo inta iska hays ever iska noqonayso. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يدل كنا بجدين دقل كسودوني ذات كشوف صاحب يلا سودو هذا هل كان هو مغل مغل بهيا فكان قاعد كلا عتيف أنا وحنا يجري وحنا شو صاحبك يد لا لتشوجا يد سودو يد وحنا صنايا dad badan baa waxay isweydiinayaan talo iil miyo qurba xay mise nool yahay kuwa badan baa waxay soo qoreen iil uu dhintay waxaan idin sheegayaa saaxiibada na daawanaya gidigood meeksay joogaan waxaan rabaa inaan xasuusiyo meelaha la iska arko ee kala duwan ee social media la isku yahay dadka qaar talent baa keenay qaar baahi baa keentay qofka baahidu keentay waxa lagu yaqaan qof nool weyn oo caadi oo meel joogo foornay uu dhintay moogta kuwa badan baa soo qoray iil uu dhintay waa la soo aasay la ilaaha illa allah muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka soo daray qaar baaxta soo qoray anigu aan indhahayga saaray waxaan ku codsanayaa iile inaad muuqaalkan si degan u daawataan waa barnaamijkii hor ilaahay habeen aakhiro si xoogan aad ugu gurmataan iile waxaan xanuunsanayaa waa aabba yar weeye oo carruur haysta oo mas-uula oo carruurta isagoo hooyay aabbaba oo carruurta hooyadood way moogtay baxday ilaahay u naxariisto halkan uu degan yahay gurigu moogtay jooga isbitaal buu shalay moogtay ku jiray idab ilaahay xalay gurigu joogay waa la keenay waxaan ku codsanayaa saaxiibayla barnaamijkan si degan intaad u daawataan si degan oo dhiiraan ku jirto way ahaan jirtay inaad uga jawaabtaan oo isbitaal dabadeed aad geysaan oo wuxuu u baahan yahay gurmad lacageed isugu dardartaan qof kastooba wax yar ha kala xishoon wax badanna ha kala jalaysan teetar kastoo haysto shacab kastoo aad tahay gidiga waxaan ku codsanayaa saaxiibayaal dadka muuqaalkan daawanaya Soomaaliyeed inaad u gurmataan ninka dhalinyarada ah ee moogtay hoobalka ah ee waa nin waliba hadaan moogtay sii sheego qiyaabaha waa la isoo taagaa inuu dad badan oo masaakiin oo Soomaaliyeed uu caawiyay oo u hadlay hadalkiisu meel fog intuu gaaray dad badan oo Soomaaliyeed oo kale ay garab ku siiyeen isaga iyo intii garab ku siisay ba ilaahay idan ilaahay ajri iyo xasanaad aan koobi karin ilaahay ka siiyo maanta isaga u baahan inuu garab siino sidoo kale waxaan hubaa inuu yahay nin laab xaadan oo Soomaalida ay moogtay isagu jecel iyaduna ay jeceshahay inaad wada jeceshiin baan hubaa telefoonkayga aan muuqaal badan buu mashquul galay dadka dibadda jooga iyo kuwa gudaha jooga waxay soo weydiinayeen war ninkii ma nool yahay ma dhintay ninkii maxaa nooti weyday idan ilaahay waxaan ku faraxsanahay isagoo nool inaan hor fadhino balkaan taabtay iyo lisoo ma noolid inaad moogtay barnaamijka si degan inta u daawataan si xoogan aad uga jawaabtaan baan idinka codsanayaa ilan waa soo dhaweeyay saaxiib aad baad mahadsantihiin xanuunkaaga si guud dadku ma wada ogay inaad nagu sheegto والله xanuunkii laba xanuun waaye sokor iyo buro sokorta dhib ma walaabo laakiin xooga burada dhibaato leh waxa waaye hadda waxaan iyo waaye iyo jirkii ay cunayso aragga oo dhow waxba aan laakiin aragga fog caadi ah laakiin aragga dhow ibranka waxba ma karkay qoraal hadii ilmaha soo qormarkayna oo keel gishtaan marka oo keel soo qoray oo keel samkaan akhrinay aan gishtaa marka taas waay marka alxamdulillah burada bis ku tala wax badan ugu taalanayo wax badan ugu taala waatii aniga aqaan tagay iskaana saaray marka waxay ugu dhaheen galab way dhaheen marka hadii oo kaasaa qof rasuulka oo yani waqtiga oo saxiix qof kale oo rasuulka oo wakiilka ina keenst maalinta ugu dambeysay ma tagin gorbay marka adiga waxa ka soo wareegtay baasha dhowr sano baan baasha waa iska oo socday waa iska xamalna maayne xawaaye aan socod baday aan socod iska mar tinta iska hadayso afantama oo xilliga qabo tinta iska hays ever iska noqonayso marka dadka qaar waxay ku leeyeen إلا محابة ما أنا أبيه فرعنا بدار مو ولا هذا نحكي إلا محا ما حكش مستنت وقوس بعده مركا سؤالات سكالون كانوا مركا إن وتا وحالي دكتور جرمل يحس الجو هبينا بالكي يعني فيصل كرتي قرر للسيو حقول لك ويا أنتم مزينا إن ما كتكو مش عارف كنت تقول هذا هذا حيجي تستعمل saddex baa jooga halkan jooga jooga hooyadu way kala tagteen waad kala tagteen barmaan gabadhii hooyada dhimatay ilaa naxariisto adaa hooyo waaba hooyo waaba oo kala kaltay saaxiib ilaad bad maasantihiin
iidla yare waa nin moogtay wax badan aan ka aqaano runtaa wanaagsan waa nin moogtay dadka Soomaaliyeed horta aad u jecel yihiin boqolkiiba 99 waxaan midh iyo de moogtay midh iyo wax moogtay aan dhaamin baan maanayaa inay kuwii dilayay lahaa uu dhintay uu nool yahay waa kan markii aad aragtay qoraalkaaga moogtay liigu dhintay maxaa ku soo baxay wallahi horta waxa ugu horeeyay oo walaashii igu weyn Camar joogto waay gabar ku ilaalta inta joogtaa ayadana waa isla hadalnay xawaaye inta dadkaas ay darnay iyo walkii la shiyo adiga waa la hadlay waa hadalnay macnaha inaad u sheegaysid inaad nooshahay dadka sirr moodin inaan noolahaa marka qaar inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun mal bungal yidafiro nin oo sirr saaran oo macawis musulul mutamaqani qoorta lagu qoortiya la saaray marna sheekhan yarkee Daaci Mukhtaar oo qaburo walaashiis joogo al isar soo dhahay maanta oo jiddan qaburan jooga waxa saaran muusig oo tiraayla marat oo turumbu ku jirto oo weyn ala saara fahant marka dadkii horta ala cabsi ku yaraade waxa uu leeyahay fanka xaraan waay laakiin wax ka darno ka xaraan badan waxa waay qofku aad been ka sheegto aad waxaan ka dad badan oo beeji furteen dhahay ila caawina esas lacag ku arursanayo adduunyadina waxa way soo gaabatay ama tamana marka adduunyadu way soo gaabatay laakiin ayaga taas xisaabteeda miskashan marka adduunku cusub waay laakiin waxa waaye xilli waxa lagu jaa aqal samaana waxyaabihii laga xishoonayo lagu faanayo waxyaabihii lagu faanayo laga xishoonayo marka waxa waaye adiga aqal sama wixii soo dhow marka mata qaat muhammadi ya taana wasabo waxaan askaxan waxa ka daranbo waxa dadka ay sameynayaan dadka qaar damirkooda yani oo dhintay oo dhahay baashi ila ahay qaarkood waxa u baahanahay hal caawiyo dadka qaarna waxa leeyahay walaalo adduunku waa la horumaray nin iga row adduunku waa la horumaray qofka marka aad wax u dirayso waxa leedahay inaad tirada baashi camera iga fur inaad hubiso camera fur hadda kor qisa ku dhacday anoo iska joogo jamka anoo joogo xilligaas jamka iska adeeg badan jiray awaalada iga row facebooka gabar waxay iga soo qortay baby ma imaatay igu tiri baashi maxaa hidro maxaa lahaa hidro waa garoon ku yaala ingiriiska London buu yaala ma imaatay tiri anuu ingiriiska imaaday Sweden deganta isay ishit marka ma ku fahma ba maxaa kaalisa gabadhana ma taqaanid ma aqaanaa kamerada furo kamerada isma kamerada furtay dib soo wacday ay abaan waxaan dhaneero waliga dhinac ugu bixin kowde hidrana ma garanay ya hidra sheegaysna ma aqaani waxaan dhahay hidro muxuu yahay marka waxa ima fafayno qoftu dhacanta waa dhacanaye waa dina qof markay firis kadib camera iska furanta laakiinse qoftii waa banaanka u carartay qeylada si maqlaa si qeylnaysa waxa ku dhacay markay ilo nin baa wuxuu ku sameeyay oo aan isaka dhigayo oo jecel beena markaas wuxuu yiri macaan aniga maadaam faana ahay waxa la ismeeyay invitation marka tigidhkii 2500 iga dhiman ya tigidhkii isdabara leedahay mardi iga roodii oo invitation lagu sameeyo ma ogtahay waxa yaa wada qamuta dadka xogo mintalaan ya marka balada ku yeeshatay boqol gool ka xiyo weynay iyo ninkii intaas jaceelka jireysay ya qalbi shabka markaas uu leeyahay macaane qoraalada isoo dasmaga dam hadda mar laabtaada ku seexdo ya sawa dhaami lahaa ya iska bilaa marka iska badanta xaaladaha social media warniyo
أنا ما أسكت صلاة ماينة ميت صلاة ورتاه صح أبدا منها مروان أنت ولا هذا حاسود ويلود من الله aad baad baasintii saaxiib yeel gidigii meegstaad joogtaan nabadgelyada biyo naxariisiisu midda gaarka ayaa taguudinta baguudkiina ahaadeen iidle waa nin moogtay dhalinyaro ah oo aabba ah waa aabba dhalinyaro ah dee gurigiisaan kusoo booqday isbitaal buu moogtay shalay jiray isbitaal buu moogtay xanuun la aaday iidle sokortaada hoos dhacdaa mise kor u kacda ما تكره دوا kor aada كره ده sokortaa markaa dhacday sokorta waxaa ka daran xanuunka haya dee burada madaxa kaga taalo in badan kaga taalay bulshadu iskaga dhex jiray nin moogtay dadka masaakiinta ana dee in badan u hadlay oo caawiye weeye ilaahay ajir fara badan ha ka siiyo isaga iyo intii garab moogtay ku siisay moogtay la caawisayba maanta wuxuu u baahan yahay saaxiibayaal haddii lagu yidhi dee iidlan waxa ururinaayo u gurmanaynaa dee anu kolley waxaan umanayaa dee qof saa wax iskaga bixinaya inuu jirin iidlan waa kan hor fadhiyaa telefoonkiisu idiin sheegayaa isagaad la soo xidhiidhaysaan qofkii doonaya inuu garab siiyo oo xaaladiisa ogaado horta wuxuu u baahan yahay garab iyo gurmad xoog luu u baahan yahay runtaa fiican hadalka lagama moogtay sinaysto ama laga soo dhaco hadduu mid yahayna meesha lagu tagaa hadalku waxaa la yidhi mar waa saddexoo mar dembi baa leeyahay mar dembi baa leeyahay mar daalis baa moogta leeyahay wixii dembi ilaahay naga hayo xaqada danta abaan idiin sheegayaa inagu inuu baahan yahay inaan u gurmano oo isbitaal dabadeed la geeyo oo carruurta yaryar ee haddeer uu haye aabbaha iyo hooyadaba isagu u yahay oo gacanta ku hayo waxaan umanayaa cid lagu sii moogtay aamino lama waaye cidun baa loo dhiibaya laakiin gurmad lacageed buu u baahan yahay inaad u gurmataan baan saaxiibayaal idinku boorinaya gidigiin meegstaad joogtaan iidlow telefoonkaan rabaa dadka inaad afkaaga u sheegto تلفون كذا عام نضبه نمبر كود حواي 07 03 58 30 61 كان كلنا حواي 07 20 20 31 05 labadu bay soo kuliyeen labadaba dhunta u furnaa dhunta u fur magaca ku qoran magaca ku qoran Iidla Cabdullaahi Nuune sax labada telefoon ee muuqaalka labada dhan kaga qoran Iidla iskale mid dadka wada kala ka helaysaa idab ilaahay wuu xanuunsanayaa oo hadalku uu dhibayaa laakiin inaad u gurmataan baan saaxiib ilaahay ka codsanaya 10 saacadood inagu soo aadan intaan ka bilaabato inaad moogtay waji lacageed oo xoog leh idab ilaahay aad garab isku taagtaan baan ka codsanayaa una ducaysaan qof kastaba u ducee haddii qof duceeyay haddii laba ducaysay haddii shan ducayso ducada la isku dardaro diinteena inoo sheegtay ayaa badan u duceeyay saaxiibayaal siina gudbiye muuqaalka aad baad mahadsantihiin saaxiibayaal intaan mar kale kulmayna waxaad inaa ku dar walaalahay igarow hawshaan maasha allah to aadan ku markaan ku arkay muuqaalbadan ka arkay maasha allah aadan farx waa hawshaan waan qaban jiray laakiin inta hawsha qabanaysa waxyaabo badan ala la kulmaysaa oo la yaab kugu noqdo waxaa dhacday laba maamo oo waayeelo ah oo gurguurinayaan videogooda la tusay waan arkay bibito maqaayad kulun cafe aan fadhiyay isla ma inta hoose qaybta lataa isla meeshii aan fadhiyay waxaa ka bilaabay maasha allah yar yuusuf saaxiibkeya oo hadda mar safradiis kismaayo u badan saaxiibkeya ninkaas anagu is aqoonin isla markii 5 kun oo ka imanay uu bilaabay meeshaan aruurska bilaabay lacagta waa aruuriyey marka in baan wakiisha wala nin aniga xamar ma joogiye maamooyinkaas meesha ay joogaan inuu iraado lacagtaas u diro video iga soo duub maalmo kadib gabar ay socotay boomiya maamadaas lacaga oreetri lacagtina ma soo gaarin baashi wakaasa maamadii inkaarayso oo dhehayso magaceygan si fiican masaxku waayo iska waayeel waayo halka wiilna waa laga dilay oo u shaqeynaya u ordayo bajaajooda marka xamaa lagu dilaa marka waxay tii ninkaas iidlee hala ii soo qabto waa naxay waxaana see camal marka hawshaa markaa ku jirto dhibaato badan kala kulmaya marka inta waxaan u mahad celinaa walaalkii aabahaa iyo cabdiraxmaan yani dadkaasoo garab igu siiyey oo dhahay maamadaas lacagaan u wadaan dhahay marada lacagaan aruri waxaan ahayn oo ku daray sidii aan lacagta waxaa loo geeyey waxay degnayeen meeshaan la dhaho kaaraan maaha kaaraan waa tagnay video hadda wataa mina kaaraan ilaa iyo meel baan aan tagnay marka waxay iidla macabsanaysa oo dhan markaas waxaan dhahay anoo sadaqar oo qaybin dhibayo hala idilan dhahay marka aabahan inta kasalamaa marka waxa waaye dadkii nihu markaan hawshaa ku jirto waxyaabo badan oo kulyaa arkaysaa wax kaa fajiciyo
dhowr maroo isbitaalka meeshan ku yaaleen nabad u dhow maxaa la dhahaa laba gabdhood oo hadda waa dhintay ala naxariisto kansar qabeen iyo lacag badan oo aruurajito intan aan waxaan ugu mahadcelinaa madaxweynaha jabuuti ismaan cumar geelo asna qadargar birsi shay toban kun oo usoo diray adiga haa marka waxaa dhacday maalin anigoo roob intuu da-ay oo aan lacag soo aruuriyey oo qoyana aan nin garlo meesha fadhiyay meesha kursigaan fadhiistay gabadhiyaa tukanaysa qadar ala naxariistay markaas wuxuu intaan lacagta soo aruursaa wuxuu shantawaala ku leedahay shantawaal maxaa laandhay haafin aa kulad waa fiiri sunaa ku taalo garka waa kanaa marka waxa waaye yacni waxa oo xun keliya hees keliya ma ahee waxyaaba badanaa jiro iyo moogtay saxaabadana daawadaya anigu waan u sheegaya horta marka la raba inaan uga warramo caqabado fara badan oo moogtay ugu yimid baa jira kuwa nafteeda aniga halis geliyey baa jira moogtay adigu waa su-aal yar oo moogtay weydiiye kuwa nafteeda halis geliyey oo rag badan oo aan saaxiibamoodii inay yihiin oo moogtay dadka igu dhowaa oo aniga dabcan inay moogtay nafteeda qirqiir geliyaan oo moogtay aakhiraba ay diraan baa islii ka dhacday kamaan warramin laakiin adaa haddii la xusiyey mar baan rabaa inaan si gaara warbaahinta oo dhan intaan isugu yeedho inaan si gaara idam ilaahay uga warramo taas wanaag kasta oo la qabto waxay leedahay caqabad ku timaadaa diinteena wanaagsan ilaahay ina siiyey wax ilaahay ina siiyo ugu qaalisan dee nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh dhibaatadu ka marayda waad garanaysaa iyo moogta saxaabihiisiiba marka wax kastoo wanaagahoo aad samaysaa caqabad kugu timaadaa ma waayeyso markaa saaxiibayaal ilaa ay xusiyey mar kalaan taa ka warrami doonaa iyadoo aada u weyne weliba dadka qalbigooda anoo dee kor xaadinaya oo ilaalinaya saaxiibo badan qalbigooda ilaalinaya inay wax yeesho anugu cabaar dhan baan iska shakisanaa xataa isniyo miyaad nooshahay mise already miyaa istaataabtay mise waa dhimanta tii ku dhacday kuwaas ay geliyeen moogtay waxay ahayn kuwa aan saaxiibo moodayno inaan ahay oo ama aan nahay saaxiibo oo dadkaan ka dhaweysan jiray oo dee kagu yar uu jiro allah soddonkee soddon maxaa anaa dhaafae war konton muu jiray ninka ugu yar waa rag weliba media camerada kasoo muuqan jiray qaarkood marka idam ilaahay markaan ka warrami doonaa waxaan ka codsanayaa saaxiibayaal muuqaalka waan dheernay ninka inaad gurmataan oo gurmad xoog leh aad u fidisaan oo labadaa telefoon ee muuqaalka ku qoran labadaba isagaa iskale aad la soo xidhiidhaan oo isbitaal dabadeed aynu u qaadno idam ilaahay si xooga aan idinka codsanaya saaxiibayaal intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu